Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawow YouTube channelkeena Somali Youth Scholars. Haddii aan ugu cusubtahay fadlan soo dhawow. YouTube channelkeena waa YouTube channel aan ugu talagalnay inaan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed si ay ugu faa'iideystaan fursadaha aad ku faraha badan ee dunida dacaladeeda ka jira oo ka mid ah sida ay u heli lahayn ee u xariisan lahayn deeqada waxbarasho iyo sidoo kale yooyinkooda ku aadan dalalkan America, Europe, Canada si ay u tagi lahayn iyagoo san tahriibin aan u soo gudbinayno fursadaha ugu fudud ee ku tagi lahayn wadamadaasi. fadlan fiidiyoyadeena haddii ku yihiin kuwa faa'iido ku ah nafsadahantaada fadlan walaalaha ay kale la wadaag la share garay. insha Allah mawduuceena maanta ayaan u gudagalaynaa. Jazakumullahu khayran. haddii aan mawduuceena u gudagalno sidaad ugu jeedaan ciwaankeena maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay oo si qaas u quseeya walaalaheena oo ku guuleystay green card lottery sidaan rajaynayna natiijooyinka wuxuu soo baxay maalmihii la soo dhaafay. waa dadkii xariisay sanadkii hore oo natiijooyinka helay bishan shanaadada dhalatay dhexdeedii maalmihii la soo dhaafay ayuu insha Allah videogan quseeya. waan garanayaa dad badan aad isweydiini doon intee wax ka bilaabaa. insha Allah videogan waxaan rajaynayaa inuu aad iyo aad ku anfici doono. waxaan kugu sheegi doonaa meel walbo tilaabo walba aad qaadi doontid waxyaabaha lagaaga baahan yahay. insha Allah yaa si fiican kugu kaaga warbixin doonaa. anigoon iska dhehaynin waxaan xog aan iska soo aruuriyayna aysan ahayn. waxaan dadkii ku guuleystay green card lottery sanadkii 2018 laakiin aysan u suurtagelin in aan baxo oo aan Mareykan tago. waxaa igu qasbay oo sababayna waa markaas xayiraad ayaana saarneed oo Mareykan maanan geli karin oo madaxweynihii hore oo Donald Trump ayaa markaas xayiraadna saaray. marka nasiibkayga ayaa saas noqday oo calaf ilaahay uma darin oo maanan bixin sidaas awgeeda. laakiin ilaa iyo waxaa jaanis nasiib baan u yeeshay ilaa interview inaan gaaro ilaa heer interview inaan safaarad ataga wareysi ay la yeeshaan. marka waxaa waaye marka khibrad fiican xog fiican aan isleeyahay maanta walaalaha waa ku dhaantaa waa u soo gudbin kartaa ayaan insha Allah idin la wadaagi doonaa. waxa ugu muhiimsan oo aan isleeyahay maanta haddii aad ku dhaqaaqdid saddexdani talaabo aan ku soo sheegi doono si wanaagsan aad ula socotid aad ula dhaqaaqdid waxaan rajaynayaa in wax badan aad iyo aad u badan ee rajadaada ku aadan inaad hesho fiisa dalku gal Mareykanka aad tagtid oo aad green card-ka ku heli doontid. insha Allah saddexdan talaabadaad si fiican u dhigeysto oo si fiican u raac. haddaan u gudagalno talaabada koowaad oo ah waxa lagaaga baahan yahay haddadaani inaad buuxisid form la yiraahdo 260 DS 260 ayaa la dhahaa formkani. waa DS 260 ayaa la dhahaa formkani. waa dadka ku guuleystay bisaa formkani xareysan karo aad diri karo. haddaad dad ku guuleystay sanadkani oo haystid warqadii aqbalaadii meesha ku qoran tahay warqadaada wax walba informationka inaad ku guuleystay haddaad tahay dadkaasi formkani waa talaabada koowaad oo lagaaga baahay in aad si fiican u buuxisid aad u dirtid sida ugu dhaqsiyaha badan. formkani sidoo kale waxaa isweydiinaysaan goormee ugu dambeyso oo la diri karaa. formkani waxaa ilaa ugu dambeysa aad diri kartaa sanadka kale 2022 Septemberkiisa waa diri kartaa. waa marka ugu dambeyso laakiin waxaa waaye September aad diraysaa micnaheedu ma ahan micnaheedu waxaa mari waa micnaha Mareykan in aad micnaha saas ay u dhigantay. waxaa waaye September waa bish ugu dambeysay 2022. marka formkani waqti aad haysid iska xaray hadda hadduu case numberkaaga uu yahay number dhow oo mesela ilaa 10,000 wixii ka hooseeya hadduu yahay formkani hadda iska buuxiso isku day DS 260 kan muhiim ku yahay. marka formkan intaana buuxinin waxyaabo loo baahan inaad diyaarsatid oo aad hadhow aadan dhihiniyo inta ka keena. waxyaabaha ka mid waxa waaye inaad heshid address ciwaan hadhow aad markaa Mareykan tagtid aad ku degtid guri
ciwaankiisa inaad heshid sidoo kale ciwaankaasi waa meesha lagu soo diri doono green card-kaaga ee kugu soo diri doonaan marka ciwaankaas inaad heshid qof meeshaas degan inaad heshid waa magaciisa oo dhameystiran telephone numberkiisa iyo addresskiisa inaad heshid waa muhiim formkaas ayaa gelin doontaa sidoo kale formkani wax yani documents warqad ma dhigelin doontid yani mesela passport iyo shahaado wax la mid ah yani kuma upload gareyn kartid يعني واحد مكعب بحر واحد قريتان واحد كقر له بس سو ما قرن سيدو كله فورم كان وا ماشي عاد كدورن لهاد ماشي عاد انترفيو اكو قال له ماشي وريسي اكو قال له سفارة وريسي اكو قال له ماشي كدورن له دوا هذا سومال لا يحوا كينيا جيبوتي اثيوبيا ميلها سنة ميلها مركب مدرت ماشي كدورن السفارة فورم كان واي hadda Soomaali aadan joogin oo mesela Turkiga joogta waxa ka dhigan kartaa Turkiga ka dhigan kartaa safaaradda dalka Mareykanka ku taalo oo Turkiga ayaa dooran kartaa meesha soo ku gali kartaa interview-ga marka muhiim way sidoo kale hadii ay jirto qof abada socotiin aan xaaskaaga oo hadaadina markii ay xariisanaysay waqti nasiibkaani aad ku soo sheegtay inaad guursatay fadlan formkan ku caday inaad guursatay qoftaada baasaboorkeeda akhbaaradkeega hadaa ciyaal leedin ciyaalkiina akhbaaradkiina buuxo sidoo kale waa inaad formkan gelisid laakiin hadaa single tahay yani keli tahay oo meeshan hadaadina formka hore aad ku soo sheegay inaad guursanin formkan ha ku sheegin marka waxyaabaha badana Soomaalida waxa way sabab problemyada waxa beenta kamid waxa way بنتين أدو فربضان قفنا آميني سمجيرو قف وليبو بين وكسعدا حواي بقول كيبو لباتن صدن أيا لغسيا سومالي فيزوينك جرين كاركان لو بقول لازدح بقول قفا كوكوليست لكن هدا ديب أفيرسيد استاتيستيكا حس ديب أفيري وحاكو كوكوليست oo laga siiya fiisooyinkan konton qof 60 qof 3 boqol ku guuleystay 2 boqol konton ku guuleystay konton qof 60 qof laga siiya sanadba maxaa yeelay waxa way beentooda badan hadeed waxa ku soo qoray inuu soo dhimeeyay dugsi sare hadhow markii intuu imaaday shahaado jaamacad uu la imaana mise xaq wuxuu ku soo qortay inuu yahay single oo yani qof baqabin formkii DS2 wuxuu qoray inuu guursaday ciyaalkii waxa kala tagaa marka waxyaabahaas oo dhan beent iska ilaali waxyaabaha shahaadooyinka bugta iska ilaali wax nadiif la tag runta marwal bas cadaad waxaysanin meesha runta ka sheeg u tag wuxuu buxaway hagaagay laakiin been wiliga ha isku day dadka stupid man waxa wuxuu bay la socdaan ku garnayaan marka waxa runta Ilaahay kula ogeeyay ku qor formkaas marka step kani waa buuxitaanka DS260 formkaas ina buuxisid step kood muhiim way إن شاء الله فهم كان سيد لو بوحيو وح والبو أو كوسابسان إن شاء الله السجن ميل البو طلعوا بأمريكا الصور لما يصيرن إن شاء الله وفيديو ونوحي أيون قندونا ونسوق لندونا يوتيوب إن شاء الله ما سوء أدن حواي إن شاء الله أنت قرب كيني حواكو أنت إن عامنك إن شاء الله وإذا عامل دونا وحاول نبي صوبتا سواء فيديو إن يوتيوب كان جانل كان وحن أفرني إن أنكو عاون ولا لهنا وحيابه أي وباين talaabada labaad waxa waaye ina dirtid documents kaas oo ah baasaboorkaagi warqada shahaadada dugsiga sare warqada dhalashadaada warqada oo booliska dimi baarista warqada oo gurka marka formkii DS2 marka dirtid qoladani Mareykanka way soo fiirin doonaan formkaaga waxay ku soo dir doonaan email oo ku leeyahay hambali waa aragnay formka uu soo gaaray waa akhrinay waxa inoo soo dirtaa documentiyadaas noo soo diray ku leeyahay documentiya meesha ku soo meeshan gareyn doonaan ee ku soo sheegi doonaan marka documentiyadaas waxay ka quseeya adiga inaad dirtida loo baahan yahay waa step kale documentiska marka waxa way meesha ku jira baasaboorka ku jiro shahaadooyin dugsiga sare jaamacadii waxa shahaadooyinkaagi warqad dhalasho warqad booliis ku jiro warqad dhalasho ku jirto marka adiga mesela ka soo qadan single aan ahay kaliya ahay maxay iiga baahan yihiin ay u diray marka adiga waxay kaaga baahan yihiin adiga kale inaad la tagtid warqada mesela baasaboorkaagi inaad dirtid warqada dhalashada
warqadii oo police certificate warqadii dambaarista marka warqadan dambaaris iska ilaali CID da marka tagtid labo warqad dambaarisa taal mid waa mid passport marka sameeysinaysa soo qaadatay midaas lama baahno midaan way ka duwantay midaas oo kale midaan waxa way marka u tagtid u sheeg fiisaan u rabaa dheh way ku siin doona way fahmayaan markii fiisa marka dhahdid way ku fahmayaan way ku siinayaan marka warqadaas oo police certificate marka hada single tahay wixii ka yahay passport-kaaga shahaadadii dugsiga sare jaamacadii warqada dhalashada warqada booliska intaas way intaas adiraysa laakiin hada guursatay warqadaada guurka sidoo kale waa raacinaysa daa xasala tahay sidoo kale ciyaal hadii ku jiraan xaasadtaada hadii ku jirto sidoo kale idan waa diray warqada dhalashadeeda warqada passport-keeda wax walba idan cunug walba sidoo kale waa diray warqada dhalashadiisii dambe baaristiisa wixiisa dhan waa diraysa dadka waxa xaasalaha oo ciyaalka haysto way document walba oo qof walba waxa oo ka kooban warqada dhalashada warqada dugsiga sare mise shahaadadiisa warqada booliska passport-kiisa qof walba waa diraysa kaliya madris iyagana waa diraysa formkaas then formkani marka dirtid documents-kani marka dirtid warqadahani safaarada qoladaan u xilsaar Mareykanka dib u soo eegi doonaan foomamkaaga way soo akhrin doonaan way la soo socon doonaan then waxay ku soo direen email oo ku soo hambalyeynay kulli hambali documents-kaaga waxaaga warqadahaadi waa helnay oo ku soo hambalyeyn doona waxba kaama qaldanay kulliin laakiin wax ka qaldayn way ku soo sheegaan in kulliin waxa ka qaldan waxaan u baahanay inaad waxa soo bedeshid waxa keentid ay kulliin marka aday wax ka qaldayn markii email-kaasi ku soo diray waxa ka qaldanay kulliin waa dib u dir doonta hadan way ka soo saxayeen marka waxyaaga email-kan ay way saxan yihiin waxaaga ay ku dhahan marka step koowaad ku dhamaa step saddexaad ah marka step saddexaad waxa sugaysaa email fariinki imaani doonto dhankooda oo ku saabsan interview-gaaga meesha yani waqtiga interview-ga aad gali lahayd meesha aad ku gali lahayd yani meesha ku gali lahayd waxa ka soo dooratay meesha ay ku soo sheegay formki DS260 ka soo dooranay hada kiin ka dooratay kiida ku gali doonto interview marka waxa ku warqa email-kan ay ku soo diri doonaan meeshii time-ka aad gali lahayd interview-gaaga taariikhda aad gali lahayd iyo documents-ka warqadihi ala tagay safaarada email-kana ku qoray fariintan ku qoray fariinta waxa ku qornaa dhahay saacadii aad gal lahayd interview-gaaga documents-ka ala tagay lahayd meeshaasi iyo waxa kale oo raacsan caafimaad warqad caafimaad raacsan warqad caafimaad waxa ula jeedaa yani ina caafimaad soo martid maxay ku soo sheegi doonaan email-kaasi ay ku leeyihiin isbitaal hebel tag oo waxa ka soo qaadata warqad caafimaad ka soo mar marka dhakhtarka isbitaalka tagis meesha kugu soo sheegi doon adiga ina iska baxdid isbitaalka ratib tagis marka email-kan ay kugu soo sheegi doonaan kuleeyeen dhakhtarkaas tag isbitaalkaas dhakhtarkaas u tag caafimaad ka soo mar warqadaas leemo marka waxa laga baahan yahay inaad diyaarsid warqadahaadi ee meesha kugu soo sheegan ee kuleeyeen warqadaas documentiyadaas leemo iyo warqadaas caafimaadka waa inaad diyaarsataa muddo waxay ku siin doonaan oo ah adi bil mise isbuuc adi 3 isbuuc ilaa bil waqti leeyahay ku siinayeen yani si aad isku diyaariso marka step-kan saddexaad waa email waxay ku soo dirayaan dhahay oo interview-gaaga waqtiga ay gelaysid taariikhda ay gelaysid documents-ka ali imaan lahayd documents walba adiga lama tagays meesha kugu soo qoran documents warqadaas la imaaway kuleeyeen copy-giisa iyo original-kiisa iyo isbitaalka caafimaad ku soo mar lahayd ay ku leeyeen isbitaalka dhakhtarkaas u tag warqad caafimaad ka soo qaado marka intii ay qaadanaysa maalintii aad leedahay interview-ga taariikhda saacadii 2 saac ka hor si tagaysa meesha interview-ga sidaas ku galaysa waxaan rajaynayaa video-gan inuu nii caabiye sidaan sheegay saddexdan step oo formka koowaad oo ina buuxsilo baandiya suusiga inaad dirtid laba documents-ka inaad dirtid saddex oo email inaad ka sugtid iyaga oo waqtiga interview-ga ay gelisid waxaan rajaynayaa video-gan wax badan inuu kaaga baxay insha Allah aad u jeclaan lahaa haday su'aalaha qabtid inaad ii soo sheegtid qaybta comment-iga fariina igu reebtid aad iyo aad ugu jeclaan lahay inaan ka caawiyo wax walba aad u baahan tahay insha Allah
hadduu videogani uu aragtid mid faa'iido leh naftaada iyo qof walaalkaaga sidoo kale u share garay haddii intaas ilaa intaan soo daawanayso videogani jazakumullahu khairan aada qiimo igu leedahay agteyda is ilaali mar walbo aynu mar kale videogeena xigay insha Allah